kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada Nawaal Show nagal barateen barnaamijyo go'an oo ka dhacdooyinka idinkaga soo wargelin jirnay maanta waxa marti ugu ah Shukri Sharaf iyo Sahra Diiriya topigeena maanta wuxuu ku saabsan yahay gabadhii yareyd Mareykanka Columbus ilmaha yar ee uu jiray hal sano iyo bar lagu qiyaasayay kaga tagtay supermarketka والله runtii dhacdadaasi waa dhacay aad iyo aad u tiiraayo badan marka waxaan rabnaa inaan falanqeyno marka Sahro hadaan kugu bilaabo maxaa ka leedahay hooyo Soomaaliyeed oo newska la soo saaray videogana laga soo daayay iyadoo cunug yarka gacanta jiidaysa markaasna dukaanka geeskiisa istaajisay dukaankana si ugu baxday kadisa sida iyadoo telefoon camal inuu ku hadlayso camal ay uga baxday ilmihii yaraay meesha ugu tagtay maxaa qisada maxay kula tahay hooyadaas waxa ku kalifay maanta dhibaatada noocan ah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أصحابته ماشي كل شيء تنوع وذا السلام النوال آد بعد هاد سنتي وحن كل سود وين يا سلام يا شكر شرف بان سلام يا إنكو دم واحد وذا السلام هدي أنا أصلا نقطة قبضة سوماليات يعني هي ويل كير اللي يريشان يطمن بلاد بيشري دكان ككنتي أو دكان كدحديس أو عرفتي يعني هي كل وحواي قبضة هرتا وح كل في ما إنه قرانا إنه صاد شيكتي وحويان لكن محاكيني كرينو إيجينا سببت كيني كرتام حيتهاي waxaan kaloo fiirinaynaa dad badan waxa laga yaabaa inay dhahaan maaragtay arintaas waa maskaxiyan wax ka socda iyo ama mental issue ay ka dhigaan oo maskaxiyan iyadana waxaanu eegaynaa qofka maskaxiyan mental issue ga qaba oo mental illness ka qaba awood ma u leeyahay ama capability ma u leeyahay inuu mataqaanaa wax oo yacni qorsheeyo ama balaan gareeyo ma u leeyahay iyadana waa eegaynaa marka siday aniga ila muuqato ama information-ka aan ku hayno inkastoo Shukrina mataqaanaa ay la xiriirtay dad oo ay maaragtay ma sha Allah ayana ka warrami doonto laakiin sida hadda ku aragno qoraalada aan ku aragno horta gabadhii wax waaye dukaankay soo gashay iyadoo ilmihii wadata ilmihii markay wadatay meeshay warwareegtay baa lagu leeyahay dukaanka dhexdiisa sida artikelada aan ku aragnay markay warwareegtayna way carartay waliba waxay ku leeyihiin raan bay dhaheen shiraan marka ma ay xataa soconin shiraan markay carartay dabadeedna waxa dhacday inay yacnihi baabuurtii ay hoonka ku yeeriyaan marka hoonkii baabuurtii markii lagu yeeriyay way joogsan weysay way ka oroday cunugii yaraa markuu soo jeesta meeshii uu arkay iyadii joogina afkuu furtay wuu ooyey cunugii markuu afka furtayna dadkii oo ninkii kalaaga joogay meeshii joogay baa ku soo orday dadkii baa u yimid cunugii markaasa waxaa loogu wacay booliiskuna ilmihii yaraa waxay geeyeen mataqaanaa ilmaha meesha mataqaanaa children service oo mataqaanaa countiga adiga Ohio markay haddaan u dhaca Shukri waxaad research baad samaysay waxbaad soo ogaatay qof wariyo waxyaabahaas ku dheereena waa tahay marka waxaad soo baartay bal wax nooga taataabo waa mahadsan tahay Nawaal Show waa idin salaamaya adiga asxaabta ku xiran Sahra Diiriyana qodobo muhiim ah ayay ka dhawaajisay iyadoo qodobo salaamaya marka hore arinta ilmaha yar ee gabadha iyadana hooyadii iyo dukaanka inta geysay isaga carartay waxay noqotay dhacdo aad loola yaabo oo warbaahinta dalkaasi Mareykanka anaguna caalamka qiimihiisa kala duwan anagoo joogna soo gaartay social media iyo qaybo kamid ah runtii gabar asxaabta kamid ah oo isla markaana ku dhaqan isla gobolkaasi Ohio ayaa waxay ii xaqiijisay in gabadha hooyadeed ay saacidi jirtay hooyadeedna ay safar gaaban ku maqan tahay saa darteedna ay kala balantay muddo haatan 2 cisho ah ama toddobaad ka yarna ay sii maqan tahay hooyadii ilmaha ayadood wayaan marka waxaan isdhihi karaa anina isla markii gabadhii markii sheekada iiga sheekeynaysa ila wadaagtay inkastoo magaceeda ogolaasho aan u haysan inaan halkaan ka sii sheego waxay tiri ayayda ayaa ilmaha korin jirtay iyada gacanta ku haystay gabadhani hoos uma ogeyn ilmaha oo bay ma aragtay sticker ahaan bay hooyo ugu ahayd oo ayayda gacanta ku haysay ilmaha
marka maadaama iyada ay gacanta ku haysay gabadhan ay la qabsanin daryeelka ilmaha hooyadu uu kaga baahan yahay inay soo kacdo inay wax walba oo tasiilaad u baahan yahay ilmaha ay siiso ayna ku qasbanaanin inay u dulqaadan weysay ilmaha waxay u baahan yihiin energy badan dulqaad badan in la baxnaaniyo in la koriyo in wax badan loo sameeyo marka taas ayaan isla garanay sida ay gabadhaasi ii xaqiijisay saas darteedna ay dhibaatada ku dhacday gabadhana ilmaha ay dukaanka ku geysay iyadoo waxyaabo kale aan la xaqiijina oo ii tataabtay markay ma kula tahay horta gabadhani horta 20 jir way sidii meesha lagu soo qoray faadumo 20 jira newskan ka akhriyay marka gabadhani maxaa u diiday mas'uulnimadii hooyanimo oo hooyadeed cunuga u soo koriyay miyaa kula tahay wax mental ill baa jira ma social service-ki iyo maarad government-ga meesha jooga miyaa maamada hooyadeed ku qoray ilmaha waxyaabo noocaas gabadha maxaa cunugeeda koodi hore aamintooyada maxay la tahay iimayna xaqiijinin arrintaasi waxa ay koosgareeyey hooyadeed waxaa laga yaabaa annaga hooyooyinkeena Soomaaliya oo kale ama Soomaaliyeed in ilmaha waa iska naxariis badanahay naxariistii iyo inay heerkaasi la gaarto ayaa dhici karta man raba inaan hor dhaco maadaama uu baaritaano iyo howlo badan ay socdaan sidoo kale waxaa meesha taala ilmaha aabihii dhala badanaa markaan aragno markay qurbaha la joogo qisooyinka dhaca dhibka hooyada iyo ilmaha hayso ayuu ku dhacaa aabihii lama arko badanaa sheekadu waxay ku soo baxdaa hooyada targada hooyadu ayuu focusku saaran yahay marka aabihii ilmahaasi dhalay oo ayayadu ogeyd markii ayayadu safartay gabadha hadaynan ku filnayn waxay ahayd inuu aabihii la ogaado ama ayayadu ku dhowd ilmaha ay la safarto haddaan halkaas sahro aan u gudbiyo sahro gabadhani 20 jir waaye dadkeena muslimka Soomaalidana waxaad arkay gabar yar oo 16 jir oo caruurteeda xoog u haysato kaaliska arag u haysato maxay kula tahay gabadha inta kaxaysay canugeeda supermarket-ka uga tagtay naxariis daradii wax balwada miyaa loogu kolay dadka balwada markay isticmaalaan waxaa la dhahay qaybta emotionka waa xiran tahay oo naxariista dhinacaas dhan waa naam waxa la dhahay noqota ama kula tahay inay maaragtay wax balwada ilahayd hooyo for example ani hadda hooyaan ahay dukaanka markaan saan wax yar u jeesto canugayga aan waayo qalqal ay ugu dhacaa waa second marka hooyo inta cunugeeda kaxaysay supermarket kaga dhaqaajisay naxariis darada noocaas talow maxaa keeni kara sahroy aad baa u mahadsan tahay maxaan ku dhahaa Nawaal horta gabadhan waa saad sheegtay gabar 20 jir ah yacnihii dadku maaragtay 20 jir dee dhalinyarada qaar badan baa majuur ku ah 20 jir oo dee kuwa 17 jir 18 jir ilmahooda si fiican bay u haystaan laakiin intaanan tan u gelinin xagga aan balwadda aan ka fiirin waxaad fiirisaaba sheekadaba horta sheeko caadi ah maba ahanba sheeko caadi waxayse ku ahayn gabadhan maba ahaynba gabar horta markii ugu horreysaba sida aan hadda sheekada Shukri nala wadaagtay aan ka dhadhansanayno gabar mas'uul ma ahayn ka ah cunuga cunuguna yacnihii aabe inuu ku dhashay inuusan ku dhalinin ma ogin oo ma dhihi karno maaragtay aabihii kolley ma ka warqabno haddii uu yacnihii kolley laba qoys is haysta cunug ka yimid ma ahayn oo aabihii hooyo is haystaan waa meel cunug ayeeyo haysatay oo ayeeyadii ay leedahay hooyadii yacnihii inaysan mas'uul ahayn oo meeshan mas'uuliyad oo lin hooyanimo waxaad ka arkaysaa cunugii baaba lagala ballamo la yidhi biliis mataqaanaa waxaan fadlan kaa codsanaya inaad igu siisintid inta aan hawshayda soo qabsanayo in yar ayeeyadii oo maqana waxaa hooyadii isu diyaarisay oo ay iyadu qorshaysay inay cunugii ma aha xataa way qorshaysay oo waxay u qorshaysay inay cunugii inta dukaanka geyso balaan bay degtay oo qorshaysatay kaga dhaqaaqdo taasna way samaysay hadda waynu maqlaynaa waa la xiray baa la yiri waa she arrested laakiin waxa weeye qofka sidiisa markuu balwad inay leedahay laga yaaba waayo dareenka saad sheegtay qofku markuu balwad leeyahay dareenkiisa wuu ka dhintaa dareen male ma jirto naxariis dareen ma jirayso waayo waa qof needs baa jira baahi qofkan marka wuxuu inta badan ku mashquulayaa
oo dareenadii dadka kaliya naxariistu ahayn laa waxaad arkaysaa qof waaridkii dhalo hooyadii ku dilaya maaragtay because waa qof baahan addictionka markuu qofku yahay maba ay dilinba asxaan bayba u samaysay cunug waayo si fiican ba ilaahay baa cunugan watay marka waxa weeye qofku markuu addicted ka yahay waxa waaye markaasayto xanuunka haaya wuxuu ku qaboojiyuu raadinaya marka dareen iyo empathy iyo naxariis iyo waxaas wuu ka tegaya waa saad sheegtay waa naam waxa ka dhigaya waxa waaye baahi waa baahan yahay marka baahideedii say u hesho cunugan caqabad buu ku noqdo obstacle buu ku noqdo caqabad hortaagan marka waa inay iska qaarijisaa oo si ku qaarijisaa marka qaarijis kaliya ay samayn karto waxa waaye inay dukaanka uga dhex dhaqaaqdo bay noqotay si ay baahideeda u hesho waadna arkaysaa waaba ka ordaysaa iyadoo loo yareeyay ka cararaysaa oo ordaysaa oo ord isdhigta marka xataa waxay kala orday inay xataa social service-ka ugu wacdo bay xataa kari weyse ma fahamtay waayo baahida markaas haysaa ka weyn sida aan u aragno waayo qof caadi oo normal ah ilmihiisa meel ugagama tageen mideeda kaloo aan raba inaan raaciyo ama mataqaanaa aan shukri siiyo aan iyo raaciyo waxa waaye qof maskixiyan u jirana ma dhihay karno waayo maskixiyan dad badan oo waxaan arkaa kaysas badan maskixiyan kula waasha ayagoon aqoon lahayn qof aan la diagnose garaynin horta maskixiyan buu u jiran yahay ma dhihi karno laakiin behaviorka ama dhaqankeedu dhaqan qof maskixiyan u xanuunsan maaha qofka maskaxda u xanuunsan maba lahaba maskaxdiisa oo dhan waxa waaye waaba mataqaanaa ayadaaba mataqaanaa meeshii ay ku fakeri lahayd space ay ku fakerta maskaxdiisu malo uu ku balaangareeyo inuu mataqaanaa waxaasoo mu'aamarada dhiso ma fahamta waa qof maskaxdiisu aysan awood u lahayn inuu waxaa sameeyo mana dhicinin taariikhda waa laga yaabaa inuu wax dayaco qofka maskaxiyadka u jinshan waa laga yaabaa inuu wax dilo markaas wixii hortaagan laakiin ma uu balaan ma sii digsanayo qofka maskaxda hadduusan ahayn inay wax dilaan waa laga yaabaa kuwa weliba arrimaha maskaxda kala duwan schizophreniga iyo markaynu ka hadlayno kuwaas way jiraan laakiin iyaguna waxa waaye randomly qof bay ka qabsataa sidii hadda ninkii wiilkii dilayay ninka mbiga ah oo kale isagu maskaxda inuu ka jiran yahay ma naqaan laakiin de so many things baa jira maaragta laakiin ma la arag taariikhda qof ka xanuunsan oo cilmihii meel geynayo kaga tegaayo صح laakiin dadka waxyaabahaas isticmaala maskaxda dhaawac buu gaarsiiyaa oo waxaa go'aan ma gaari karaan concentrationka ka dhumo sidaan sheegnayba waxaa ka dhumo kaleeto dareenkii qaftani balaan bay samaysay qofka inayna balwad lahayn oo yacni meel wax kala jiraan bas qofka hadduu balwad leeyahay gurigaba way ugu dhaqaaqi leed ku xiri leed mogta markay mugula tahay qabtaan inayba balwad lahayn oo amayba maskaxiyanba u xanuunsanta anigu uma malaynaya inay arrintan arrin la xiriirta maskixiyan tahay because qofka markay ay yacnihii saad hadda sheegtay waxa waaye yacnihii qofka daraaga qaata waxa waaye ama balwadda leh ayadu qoftan waa go'aan ma qaadan karo laakiin iyadu go'aan bay qaadatay ma aha qof go'aan qaadan weyda go'aan weliba waxay qaadatay kaleebarnimo ah oo maskaxda loo fakeray oo ay ka baqaysaba maata cawaaqibka ka imaanaya hadday guriga ku xirto inuu noolaaday rabtaa iyadu wiilkan ma rabta inay disho ma fahamtay marka waxa waaye maadaama ay rabta inuu noolaado guriga hadday ku xirto waxay ogtahay inuu ku dhimanayo marka maadaama aysan rabin mas-uul inay ka qaado meel uu wiilkii laga arki karo oo bila'aadanku ka arki karo oo uu safe ku yahay bay geys ma fahamtay marka haddaan shukri u gudubno shukriyey maxay kula tahay wax kale oo keeni karo gabadhaasi dhibtaas ay runtii dabcan sahro sida ay sheegtay waa dabcan wax walba sababay leeyihiin gabadha sidii aan idiin sheego xogta kusoo helay waalidkii
ilmaha awalba korsaday safarka galay awalba korsanaysay maqnaashaheedii iyo gabadha inay mas'uuliyadii xamili weysadaas waa mid balwada ay waxa la sheegayay mental illness-kan mararka qaar waxaa jirto dadka markii la baaro ayaa la ogaadaa waxaa dhici karta inaan la baarin waayo wixii haddaanan dhakhtar la geynin qofkii lama ogaan karo inuu xanuunka qofkii la nool yahay ama uu qabo mugta teeda kale waddankan ingiriiska sanadkii tagay ma aqaan jaraa'idada inaa ka aragteen waxaa jirta gabar sidaas oo kale iyadana wadamadan afrikaanka ka timid kasoo jeeda inay madowgeedan jeclahay waxay samaysay iyadana xaflad dhalashadeedii miya ma aqaan ayay ka qayb gashay ilmihii ayay guriga ku xirtay ilmihii ayay guriga ku xirtay baashaal waa iska taqaanaa dhalinyarnimadii waa iska dhib badan tahay annaga waxaa dhahnaa soomaali haddaan nahay qofka dhalinyarta intuu geed ka boodo tala ka booda haddee hooyanimadii iyo ilmaha ay guriga ku xirtay mayna kusoo dhicin oo saacado kama maqnaan berye ay ka maqneed mar dambe ayaa waxaa la ogaaday in ilmihii dayac ugu dhintay mararka qaar dayacaasi ilmahan hadda waaba nool yahay oo waa la hayaa laakiin ilmo badan oo iyaga naftirkooda dhibaatada dayaca ma arag iyo waalidiintaasoo mas-uuliyaddu kasoo bixi karin ay kala kulmaan ayaa jirta intaas ayaan kusoo kulmay waa sax ma kula tahay dadkan communityda ka agdhow soomaalida for example hadda dadka deriskeeda si ay gabadhani ka warqabeen lacaan la og yihiin inay gabadha waalidka hayay kula tahay maxaan ku dhahaa inay caawin kareen yacni la hadli kareen dhihi kareen haddaa meel aadaysid for example cunuga noo keen salaamaan hadday arkaan kula tahay inay baarta ka qaadan kareen inay caawin karaan gabadhani kaligeeda sahar community-ga agaarka ka dhow soomaalida waa deris for example dadka way caawimi karaan haddii ay iyadu caawimaadda xataa haddii qofku caawimaad ku yiraahdo waa ku caawimaya oo uu qofkii ku ogyahay oo waa ku caawimaya markaan aniga rabo waa caawimaadii waa raadsanaya laakiin waxaaba laga yaabaaba fiiri dadka markay leeyihiin balwadaha waa egoist ama selfish waaye qofku markuu balwad leeyahay tiisa waxa asaga markaa rabo unbuu fiirinayaa marka waxaa laga yaabaa inaysan rabinba inayba dadku ogaadaanba waxa ay samaynayso ama waxay samaynayso because waxay og tahay in la leeyahay ilmihii baan idinkaga tegey aysa soo noqon marka ayadan waxaa laga yaabaa inaysan dadka caawimaad raadsan oo bay rabinba inay la socodsiiso dadkaba jas waxa waaye gurigaa looga tegey xataa muddo badan hooyadeed ma sii maqnayn go'aan bay qaadatay gaartay go'aankii markay qaadatay waxa waaye dukaankay tagtay ilmihii ugaga tagtay waana sida hadda shukri sheegayso sheekada London oo kale dad badan oo waxaa jira saa sameeya hadda waxa waaye dad badan oo waxaa jira ilmaha inta guri ku xiraan isaga tago taga maaragtay kalaabyada taga meelahaas taga magaciis taga shiishad raadsada wax raadsada dadkaas uma aha inay maskaxda ka jirayeen waa shaydaamo evil waaye dad marka waxa waaye dadkaas shaydaamada ah gabadhan yarta ah just timbalistad iyadu waxay rabtay say ku raadsato xururniyad iyo freedom ku hesho waxay ugu talagashay cunugan yarka ah inay dhinto uguma talaginin horta waxay ugu talagatay inay meel ku noolaado laga arko dawladdu ka qaadato ay geyso iyaduna ay xornimadeeda mataqaana ay raadsato saas ay ugu talagashay aan ku darsada Nawal mas'uuliyadda waxaa la dhihi karaa gabadhaas oo kale inaynan u bislayn waayo hooynimada naftirkeeda waa inaad u diyaar garowdaa inaad ilmahaas aad dhashay sida uurkiisoo kale balayn inaad haysatid inaad ka soo baxdid inaad wixii marka gabadhii waxaa dhici karta inay uurka xataa aynan u diyaarsanayn xilligii qaadaysa waa macquul marka waxaan leenahay gabadhaasi waxa ku kalifay wax yar ma aha horta oo maxaan ku dhahaaye inay cunuga meel uga tagto dhibaatooyinkaas badanna way dhacaan Soomaalida badan ilmaha guriga inta ku xiraan ka tagaan oo waxbaan soo iibsanaya iyo waxyaabo dhahaana way jiraan oo ayaan dhaweyd baa qiso ilmo yar guriga ku gubtay iyo ilmo yar maaragtay dabaq ka soo dhacay iyo waxyaabahaas qisooyinka noocaas ah way ugu badan yihiin UK qaasatan marka waxaan leeyahay shukri maxaa ku darsan lahayd tala ahaan oo dadka dhihi lahayd sahran u daynaysa mama sahran u daynaysa waa mahadsantahay shukri aad baad mahadsantahay waxaan ka baran karnaa qisooyinka noocaan oo kale ah waxa waaye maxaan ka baran karnaa
waxaan ka baran karnaa runtii arrimahan waxaan ka baran karnaa waa run in qofka bini'aadanka waxa weeye horta marka hore naagta waa inaysan ilmo isku dhalin haddaysan mas-uuliyad qaadi karinin waayo mas-uuliyaddu waa wax important geedkaaga xiro haddaad mataqaanaa rabtid nin inaad la sixatidna qaado waxyaalaha lagaga hortago ilmaha waayo ilmahan waa ilmo bini'aadana rabbi baa abuuray waxa weeye wuxuu u leeyahay xaq iyo xuquuq buu leeyahay dembi baa kaaga imaanaya marka kow waxa waaye mideeda kale horta tii ilmaheeda ka dhaqaaqaysa waxa waaye marka horeba ha dhalin haddaad dhashid ood ku talagashay inaad ilmo dhashidna waxa waaye mas-uuliyaddeeda ka soo bax oo yeelo mas-uuliyaddeeda haddaadan hayn karinna waxa waaye dadka kale oo ehelka ku ah ama dadka communityga soomaalida ku ah marka hore waxaad u tagtaa ayaga la xiriir ilmihii ma hayn karo ilmaha ha la iga qabto ilmahan ma hayn kare ilmahagi baa lagu haynayaa waagaad soo fiicnaatid ood mas-uuliyad noqotidna waa lagu geynaa laakiin waxaa xun inaad guri lagu xiro ilmihii dabbaa kici kara sida hadda aad noo sheegisid nawaaley yacnihii waxa waaye wax kastaa qofkii hadda waaridkii laftirkiisa markaa ka baxdid ba adigii wax kugu dhici karaan har ataag baa ku dhici kara yacni gaari baa qofkii dili kara yacnihii mataqaanaa wax kastaa imaan kara dhibaatada ugu weyn waxa waaye ilmo inta guri lagu xiro looga tago waa mamnuuc lamana sameeyo kow ilmihii xuquuqdiisii waxa waaye ilmihii haddaan hayn kelin ummadda ugu sokaysa oo ummadda soomaaliyeed ilmihii u dhibo muslimka ah oo ilmihii si fiican kugu korinaysa beri ka maalin waxaa la yaabaa ilmahaagaas inuu ku soo raadsado la dhaho hooyadaa wahayn weydi maanta in yaroo sheekadan iga raalli ahaada maanta waxaan arkay nin waxaan arkay 33 jir waaye hadda marka hooyadiis markay dhashayba waxay tiri gabar yar bay ahayd sida tan oo kale amaba kasii yaroo 17 jirtay markaas ito waxa waaye markay dhashay ma ay hayn karinin waxay sameeyaan gaaladu waxay nooga fiican yihiin ma ay hayn karinin dad bay u geyso waxay tiri cunugan ma hayn kare kursada hooyadiis warqadna way qorto way raacis ma ku hayn kare tiri maadaama aan ku hayn karinin noloshaa nolol ka fiican ayaan kuu rajaynayaa inaad ku noolaatid wiilkii waa la korsaday Australia lala tegey asagoo wax bartay oo cid kaa marayo reer haysto reerkii garab taagan yihiin oo reerkii korsaday buu wuxuu leeyahay waxaan rabaa biologically hooyaday inaan arko tankiyuu hooyo buu leeyahay for the life aad isisay nolosha aad isisay baan kugu mahadnaqaya marka waxaan yiri inta aad ii samaysay inaan noolaadaba inaad ii ogolaatay oo aadan soo ridinin baan kugu shukrinaqayaa uu dhamaan rabaa nawal timekii naga dhamaanaya intaan hawada ku wada kulmi doono daawadayaal sidaa iyo nabadgelyo adaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum meeting leave aan taabana sugiya sida loo save gareeyana hadda ma aqaani saare asaga save kuu samaysma